بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرday Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada kaalinka waxbarasho ee Ibra Solution. Maanta waxaan idin soo gudbin doonaa imtixaankii dowladda agaasinka gobolka Banaadir khaasatan fasalka 8aad maadada Carabiga. Arday marka hore oo warqada lagu soo dhigo waxaad fiirisaa oo akhrisaa tilmaamaha lagu siinayo. Fadlan akhri tilmaamaha si kaadsiyo leh ka hor inta aadan ka jawaabin su'aalaha. Afartan qodob lagu siinayo waa inaad akhrisaa. Waa muhiim ah si aad micnaha meelihii loogu baahnaa u buuxiso sida nambarka iyo sidoo kale madrasada aad dhigato iyo goobta aad ku galayso iyo magaca dugsigaaga. Waxyaalahaas waa inaad buuxisaa. U gudubno imtixaanka. qaybta koowaad waa ajib عن جميع الأسئلة الآتية. ka jawaab dhammaan su'aalaha soo socdo. الموضوع ciwaanka maadooyinka luqadaha ah sida maadada Carabiga iyo Englishka iyo Soomaaliga. Waxaa lagu siinaa sheekooyin lagu siinaa ama ciwaan lagu siinaa. Ciwaankaasaa la rabaa inaad akhriso kadibna aad kala soo dhex baxdo su'aalaha lagu siinayo jawaabahooda. Ardayda waa inay aad ugu dadaalaan maadooyinka luqadaha ah. Arday walba waxa waajibka inuu akhrin karo sheekada la siiyo si oo micnaha imtixaanka ugu fududaado. Arday imtixaanka ciwaanka hadda noo la siiyay oo noo qoran waa amraadu shaa'ica cudurrada faafsan. تنتشر في كثير من دول العالم. waxaa ku faafsan in badan oo ka mid ah dowladaha caalamka oo khaasatan gaar ahaan fi Afrika, Afrika wa Aasiya, Aasiya wa Amerika Aljanubiya iyo Amerikada Koonfureed. amraadun qadiiratun cudurro halis ah kalbalhaarsiya cudurka loo yaqaano ama berligna waa la dhahaa wal malaria iyo sidoo kale malaria wa dysenteria iyo sidoo kale cudurka la yiraahdo dysenteriyada. wa ashadul marada ta'athuran saameynta ugu badan waxay ku hayaan ama dadka ugu badan ay saameynta ku hayaan cudurrada hadda aan soo sheegnay humul atfal wa shabaab waa caruurta iyo dadka dhalinyarada ah ay al-ajyaal allati yactamidu calayha mustaqbalul bilad. waa jiilka uu ku tiirsan yahay mustaqbalka wadanka. wa min al-daruuri waxaa lagama maarmaan ah inaan tacaarafa inaan garano can hadhihi al-amraad cudurradaasi min xaysu acraadiha waxyaalaha keena iyo wa asbaabiha sababaha keena iyo daruq waqaayati minha iyo sidoo kale qaabka la isaga ilaalin karo. fal waqaayatu khayru min al-cilaaj ka hortagga waxa uu ka fiican yahay daaweynta. albalhaarsiya wa min acraadihi waxyaabaha uu keena waxaa ka mid ah التبول الدموي kaadi dhiig وفقر الدم dhiig yari. أهم أسبابه waxyaala sababaha ugu muhiimsan ee cudurkan keena waxaa waaye الماء الملوث biyaha wasakhaysan. walilwaqaayatu min hadhihi الأمراض si aan isaga ilaalino cudurkaani yajibu calayna waxaa inagu waajiba itbaacu al-aatiyati waxyaalaha soo socda inaan raacno. kow waxaa ugu horeeyo عدم الدخول أو الاستحمام in aan gelin ama aan ku musqulaysan في المياه الراكدة في المياه الترعية biyaha meelaha biyo mareenada ah abil jadaawil ama sidoo kale kanaalada abil barak ama barkadaha. waqad xatha islaamku wuxuu inagu boorinayaa can nadaafati almiyaah wa cadami talwiithiha biyaha nadaafadooda iyo sidoo kale inaan la wasaqaynin biilqaa'i alqaaduraat in lagu rido qurun والنجاسة iyo najaaso fiiha biyaha dhexdooda. الملاريا ومن أكثر الأمراض انتشارا في المناطق الحارة وهي ملاريada من أكثر الأمراض waxay ka mid tahay cudurrada ugu badan intishaaran faafid في المناطق الحارة meelaha kulul. ومن أعراض هذه المرض jiradani ama cudurkaani malaariyada la dhahayo waxyaalaha uu keeno waxaa ka mid ah alxumaa qandho iyo sidoo kale wasadaac iyo sidoo kale madax xanuun wa aalaam fi dahr iyo cudurro dhabarka ku dhaca iyo sidoo kale wa iladdiraabaat inay ciriiri galaan ama uu iska hor yimaado iska dhe fil jihaazil hadamiyu calashaan dheefshiidka iyo mandhiciraha iyo waxaas inay wax gaaraan. وينتقل المرض cudurkaani wuxuu ku gudbaa can dariiqul bacuuda kaneecada
ayaa gudbiso alladii taasoo yatakaaharu ku badan fi lmiyaahi raakidati biyaha fadhiya. Walilbacuudati kaneecaduna waxay leedahay qarduumun maci dawiilun dheer cibaaratan can ibra'atin mujawafa. Waxay u eg tahay mici cirbad duleeshay u eg tahay. Tamtamisu biha waxay ku mudaysaa ama waxay ku dhuuqaysaa damul insaan qofka dhiigiisa. Wayaxtawi lucaabuhaa dhareerkeeduna wuxuu ka kooban yahay jaraathiim almalaria. Calashan dhareerkeeduna waa jeermis waaye kaneecada. Tantaqiluhaa min shaqsi lmasaacib waxay ka guuraysaa ama waxay kasoo gudbinaysaa cudurka qofka jiran ilaa shaqsi saliim waxayna usoo gudbinaysaa qofka fiyow. Fayusaabu bilmarad waxaa qofka ku dhacaya cudurkaa ku dhacaya. Walilwiqaayatu min haadi lamraad ilaalinta ama sida laysaga ilaaliyo cudurkaani radmi lbarag in la daboolo barkadaha oo meelaha biyaha ay ku jiraan, iyo sidoo kale walmustanqicaat iyo sidoo kale meelaha qashin qubka ah, iyo muxaarabatu lbacuud iyo kaneecada in lala dagaalamo biqadri baydihi fi lmiyaahi raakida meelaha biyaha fariistaan ukumaheeda yaal in laga jebiyo, iyo sidoo kale warushul asdaxi in la rusheeyo meelaha biyaha haraadiga ay ku jiraan, lagana rusheeyo bilmubiidaat alxashariyati sunta cayayaanada. Wa akhiiran ugu dambeyntii istiqdaam in la adeegsado annaamuusiyaat waxyaalaha loo yaqaano oo cuudka iyo waxyaalahaas masaa'an cinda annawmi xiliga hurdada, galabkii xiliga hurdada. Cuudka waxaa la adeegsanaa oo kaneecada jiro xiliga oo waxaana la adeegsanaa oo la jiifan rabo. Addasantaria wahuwa maradun waa cudur yasiibu ku dhacaa al-amcaa mandhicirka. Watantaqilu waxuu u guuraa aljaathiim almusababati lilmarad. Calashan jeermisyada cudurkan sababa waxaa gudbiya can dariiqi dubaab tixsigaa gudbiya ama duqsiga. fatalawthu aladcimatu walashrabatu wasaqowida ay wasaqowaan cuntada iyo cabitaanka allatii cuntadaasoo iyo cabitaankaasoo natanaawuluhaa aan cunayno biljaraathiim ay ku wasaqoobaan jeermiso. Wa min acraadihi waxyaabaha uu keeno cudurkan waxaa ka mid ah almaqsu shadiid shuban daran, waduhuuru iyo inuu kasoo muuqdo damun dhiig, inuu dhiig kasoo muuqdo filbaraas, inuu dhiig kasoo muuqdo saxarada, inuu dhiig kasoo muuqdo saxarada, inuu dhiig kasoo muuqdo. Meesha aan maraynay marka, iyo sidoo kale walicyaa shadiid daal daran. Walilwiqaayati min hadi lmarad cudurkan si lasaga ilaaliyo yajibu calaynaa waxaa inagu waajib ah muxaarabatu dubaab inaan la dagaalamno tixsiga. Wacadamu lakli aladcimati walashrabatu almakshuufati inaan cunin cunto iyo cabitaan feedan. Waqaslu lfawaakih walkhudrawaat in la dhaqo qudaarta noocyadeeda kala duwan qabla aklihaa cunideeda ka hor. waqad xatha alislaam islaamku wuxuu inagu booriyay can nadaafati nadaafada. Wa amara wuxuunana amray biqasli alaydi in gacmaha la dhaqo qabla dacaam cuntada ka hor, iyo sidoo kale wabacd cuntada kadib, iyo sidoo kale waqabla duquul cala almaradi qofka jiran inta aan loo gelin ka hor. Wabacda khuruuj min ziyaaratihi iyo sidoo kale markii lasoo booqdo oo laga soo tago qofka jiran. Arday waxaan filaya inaad garteen qaybta xigta
waxaan ka dhigaynaa qaybta labaad su'aalaha si toos ah uga jawaabi doonaa oo imtixaanka hadda qaybtan ku soo celceliska waxaan filayaa inaad garateen asxaabtiina oo aad la jeceshiin la wadaaga wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum subscribe-kana ayaa la hilmaamin insha Allah.